السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور إباق عبد الرحمن إسماعيل بوبال. وحن كل شيء دلك عرب كإمارات العربية المتحدة كل شيء هردنا تعلمت إذا سكندري هاي سكول كإمارات كان كل ماي كبعدي أن حلقة الدجال كأين عراق وحكي جن شري markan ka soo qarin jabiyayna internship ama practice ka training waxaan ku soo dhameeyay dalka Qaahira jaamacadda Ain Shams iyo haratana jaamacadda Asr al-Qaahira especially dhakhtarka Asr al-Ainiya ku yaala dalka Qaahira hargeysa waxaan shaqada ka bilaabay in 2012 ayaan imi 2011 laakiin runtii markii ugu horeysa aan hargeysa imi clinic ama furan waxaan ka ahaa lecturer banka jaamacadda Amuud qaybta ilkaha ayaan jaamacadda Amuud aan wax ka dhigi jiray qaybta ilkaha wax ka dhigi jiray okay horta runtii hawshu wax fudud ma ahayn hawshu waxay journey dheer baan soo marnay iyo challenge wadan ma la soo kulanay aniga walaashayno dhakhtarada cudurada guud ay tahay ayaa halkan hargeyso aan go'aan qaadanay in carabta aan ka shaqeyno hargeyso oo soo goorno marka aniga walaashay baa bilaabnay idaacadan ka furnay qaybtii hore kursi qur'ilka ayaan ku bilaabay walaashayna cudurada guud bay ahayd farmasiga shaybaarkii hadhootana walaashay noqotay meeshii aniga si balaariyo meel weyn baan imanka aan karaysanay kursi qur'an ku bilaabnay imka 5 kursi ilka haysana meesha waxa ka shaqeeya shan dentist nahay oo ku jiro kiilka sameeynayo dental technician iyo maxay kana mid braces ka sameeya orthodontic braces ka sameeya mid kale maxay ahayd master ku haysa indoga xididka dila mid kale crown bridge ka sameeya marka 5 dentist man oo ku jiro iyo dental technician banay qaybta ENT gana waan haysana oday ruusha noo joogo oo dalka ruushka ka yim 4 sano doon kana naga shaqeynayay marka isaguna qaybta ENT ga ayuu fadhiyaa dhiga iyo sanka iyo cunaha samaacadaha dhigahana waan u sameeynaa dadka maqalkooda culusi markaan cabirno maqalkooda dhintana dhigaha aan u cabirno samaacadii baan u xidhnaa tan waliga u yaraa waan jeclayna wax qoro abahayna waa qoraal wax buu qoraaso taas warba waxa sarba igu kalifay program ma kule telefishka home cable ka soo baxay program caafimaad oo jimca kasta soo gali jiray iminka arbacada loo bedelay programkaas 4 sano dimka home cable ka socday waxayba taabanaysa bulshada caafimaadka Soomaaliland dhibaatooyinka jireen ka hadalna idaacadan waxaan ku leeyahay program kale xasuus qor leeyahay isagana motivation oo dhalinyarada lagu dhiirinayo sidii u guuleystaan nolosha sidii u gaaraan hadafkooda kaasna 3 showig ay ka soo gala radio Hargeysa imika waxaan soo qornay book baan qoray maxay ahayd sheekooyin gaaban oo kii idaacada programkii idaacada laftiisa ayaa laga dhigay sheekooyin marka bookina oo diyaarino ilaa imika waxaan ku hawlshanay ilaa bil gudaheeda oo soo bandhigo bookga